الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ka hadlaynaa aadaabtii qofka sooman laga doonay qayb ka mida ayaan ka hadlaynaa. xadiis nabi calayhi salaatu wasalaam abu hureyre uu wariyey radi allahu canhu. nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi wاljahla falaysa lilahi xaajatun an yadaca طacaamahu wa sharaabah. xadiidka nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu caddaynayaa aadaabta laga doonaya qofka muslimka oo sooman in uu ku sifoobo qayb ka mid ah. wuxuu yidhi nabi calayhi salaatu wasalaam waxaan garanaynaa qofka sooman in laga reebay inuu cuno, inuu cabo iyo wixii kale oo soomka furud lahaa ama soomkiisa muxuu ahaa waxuu dhimi lahaa, jebin lahaa, in uu ka dheeraado in la amre. isla mar ahaanta waxaa laga doonayaa wax marka horeba reebanaa oo xaaraam ahaa oo soomkii ka hore reebanaa in uu ka fogaado, maadaama wixii xalaasha u ahaa u ogolaaday inuu ka fogaado. wax mataqaanaa mar kasta xaaraam ka ahaa in uu ka fogaado ayaa haddana la adkaynaya. lianna arrintaa hadday dhicin wax ku olma noqonayo ramadaankii ama soomkii uu soomay oo wix ilaahay u xalaaleeyey uu ka fogaaday, cuntadii uu ka fogaaday, cabitaankii uu ka fogaaday, wixii kale oo mubaaxa ilahay u baneeyey uu ka fogaaday, wax ku olma noqonaya ramadaanka. walidaalika qofka muslimka maadaama ilaahay awaamirtiisa aad qaadate oo weliba wixii xalaasha ahaa kolkii lagu amre aad ka fogaate, waxaa min baabi awlaa ah wixii marka horeba hor kaga reebanaa in aad ka fogaato. walidaalika xadiidka aad u dhegeyso kuna camal fal, jazaaka allahu khayran. nabi calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi ninkaanan ka tegin qowla azuuri. azuur waxaa la yidhahdaa kelimo kasta oo muxaram ah, kelimo kasta oo muxaram ah, wax kasta oo baatil ah waxaa la yidhahdaa zuur. waxaa ka koobi beenta iyo xanta iyo dad isku dirka iyo shahaadatu zuur iyo kulla wax alla wixii mataqaanaa shareecadda islaamka ay reebtay. ninkaanan ka tegin intaa la sheegay iyo walcamala bihi, waxaa weeyaan hadalkii inaad ku hadasho iyo in mataqaanaa aad ku macaamulooto, ama been aad ku dhaqanto, ama been aad dad kula macaamulooto muxuu ahaa, ama aad ka dhegeysato dad been ay ku keeneen, ama meel muxuu ahaa dad lagu xamanayo ama balaayo laga maleegayo inaad adigana mataqaanaa aad qayb ka ahaato. man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi wاljahl. jahlka waxaa la yidhahdaa inuu qofka sooman doqonnimo iyo mataqaanaa akhlaaq xuma, caay iyo af xuma iyo qadaf in uu la imaado asagoo sooman. ninka sida sameeyo soonnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala soomkiisii uu raashinkii iyo cuniddii cabitaankii uu ka tage wax dan uu ka leeyo ma laha. macnaha waxaa weeyaan soomkii wuxuu kugu filan yaho, wax alla wuxuu kugu filan yaho ma laha. gaajadaad isku dishay athar baa wuxuu ahaa ruba saa'imin, badanaa mid sooman laakiin aan ka faa'idin soomkiisa ilaa juuc iyo muxuu ahaa cadash, oon iyo gaajo waxaan ka ahayn. macnaha ajir ma laha, ajir ma laha. macnaha sax wey, waa laga yaabaa waajibkii ku saarnaa in mataqaanaa uu kaa kor noqdo, uu kaa gudo, laakiin ajirkii lagaa doonayo muxuu ahaa ujeeddadii ajirkii iyo wanaaggii iyo alla dhawaashadii iyo xasanaadkii faraha badnaa oo dhan ba kaa maqan. marka ninka soomanow waa inaad ilaalisaa aadaabta lagaa doonaayo, waa inaad ilaalisaa ood ka fogaataa wax alla wuxuu ilaahay uu kaa reebe, ood qaadataa wax alla wuxuu ilaahay uu ku amre. khaasatan waxyaalaha muxaramaadka ramadaan ka hor ma muxaram ahaa sida beentoo kale iyo namiimada iyo muxuu ahaa xanta, kulla waxaas oo dhan xasanaadkaada ayay la tegayaan. allaha ku barakeeyo, soomkaadana allaha aqbalo. waa inaad iska ilaalisaa ood ku dhaqantaa akhlaaqda iyo aadaabta laga doonaya qofka sooman, sifaa ilaahay soomkaada uu mid la aqbale oo ajir iyo xasanaad aad oga hesho uu noqdo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa in uu naga dhigo kuwa soomkoodii ilaahay u aqbale oo soomkii la doonay oo mataqaanaa aadaabtii qofka saa'imka laga doonayna ilaahay uu waafajiyey
inuu ilaahay naga dhigo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa. wa sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin.